nabadda wadayaal meel kasta waad joogtaan halkani waa telefishinka RTN stuudiyaha dhexe magaalada Nairobi kusoo dhawaada barnaamijka Howraarsan waxaa idila socodsiin doona hadii uu guul la saamaxo anigoo Cabdilcasiis Barrowa barnaamijka saaka waxaanu kusoo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay ee qoreen wakaaladaha wararka ee dunida ee ku saabsan qaaradan Afrika, Kenya iyo guud ahaanba Soomaaliya waxaana qodobada aad ku daawan doontaan kamid ah qaramada midoobay ayaa ka digaysa colaadaha ka taagan wadanka Liibiya inay noqdaan kuwa aad u dheeraada isla markaana loo caalwayo xalintooda dawladda South Africana waxa ay ku gacan seertay codsi ka yimid Mareykanka oo ahaa inay u soo gacan galiyaan wasiirkii hore ee maaliyadda wadankaasi oo wadanka Mozambique oo lagu soo eedeeyay inuu geystay falal ka xiriira dhinaca musuqmaasuqa qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku daawan doontaan waxa kamid ah khiyaarteena la socota wadanka Zimbabwe oo markii labaad lagu soo waramayo in qiimaha lagu iibiyo shidaalka uu cirka isku sii shareeray xilli dadka ay hore qaati uga taagnaayeen lacagaha ay ku iibiyaan shidaalka sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan falanqeyn ku saabsan xiriirka Soomaaliya iyo Kenya oo la sheegay maalmihii ugu dambeeyay in madmadow uu soo kala dhaxgalay iyadoo dhawaan dawladda Kenya ay mas'uuliyiin ka socda wadanka Soomaaliya ay ka celisay garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi isla markaana ku amray in fiisaha ay ka soo qaataan wadanka Soomaaliya oo ay ka soo codsadaan safaaradda Kenya ay ku leedahay magaalada Muqdisho barnaamijka intuu socdo waxa farsamayn doona Cabdiraxmaan Atoore isaga ayaa soo saaray dhinaca kaamirooyinkana waa Paul anigoo Cabdilcasiis Barrow waan idila socodsiin doona u diyaar garooba jaalaya isku soo laabasho wanaagsan mar kale saaxiibada in la socdo sida la socoteen ba dhawaan madmadow ayaa soo kala dhaxgalay mar kale dawladaha Soomaaliya iyo Kenya kadib markii dawladda Kenya ay diyaaradihii ka soo duulayay magaalada Muqdisho isla markaana ku soo socday magaalada Nairobi ay sheegtay inay u wacdaan qadka magaalada Wajeer halkaasi oo la sheegay sabab ammaan inay uga dagayaan deetana ay dib ugu soo duulayaan magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya arrintan ayaa waxay noqonaysaa mid burhinaysa heshiis ay hore u galeen labada madaxweyne ee Kenya iyo Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta waxaana ay hore ugu heshiiyeen in la joojiyo diyaaradaha Muqdisho ka soo duulaya lagu hakinayo Wajeer isla markaana soo aadaya magaalada Nairobi arrintaasi dad fara badan ayaa soo dhaweeyay heshiiskaasi hore labada dhinac ay u gaareen laakiin tan iyo wixii ka dambeeyay markii muranka badda ee u dhaxeeya labada dhinac uu sii xoogaystay waxaa muuqanayay in Kenya ay qaadayso tilaabooyin kale oo dawladda Soomaaliya ay sheegtay in ay horay uga heshiiyeen haddaba waxay tahay sababaha dawladda Kenya ku qasbaya tilaabooyinkaasi inay qaado maxay saahayd arrimaha ka dambeeyay in mas'uuliyiintii ka socday Soomaaliya ee baarlamaanka iyo wasiiradaba ka tirsanaa ee dib looga celiyay Nairobi sabab la xiriira dalku galka oo la sheegay inay ka soo codsadaan safaaradda Kenya ay ku leedahay magaalada Muqdisho ay tahay waxaa stuudiyaha kula sugan oo ila falanqeynaya Cabdilcasiis Xasan oo isaga kamid ah siyaasiyiinta Soomaalida Kenya ee ku sugan magaalada Nairobi horena isugu soo taagay kursiga xildhibaannimo ee Kamakunji oo ah xaafad deegaan ay ka tirsan tahay xaafadda Isli Cabdilcasiis aad baan kaaga mahad celinaynaa waqtigaada iyo sidaad barnaamijka Howraarsan uga qayb qaadanayso maxay tahay sababaha ku qasbaya dawladda Kenya in heshiisyo hore loo gaaray mar kale ay ka laabato isla markaana xiriirkii labada dal iminkan uu muuqan mid hagaagsan Cabdilcasiis Barrow waa mahadsan tahay waana ku dhawahay stuudiyaha Kenya iyo Soomaaliya xiriirkooda xiriir shalay iyo mar dhow bilowday ma aha waqti dheer buu soo jiidanayay waa dad daris ah xiriirkoodana 100% aad buu caafimaad qabay dana fara badan oo kala wajiye lah yaa ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya qaxooti fara badan oo Soomaali ah wadanka Kenya ku sugan muddo 30 sano ku dhow oo lagu qiyaasi karo 500,000 oo shakhsi inay xiriyaha qaxootiga Kenya ay ku sugan yihiin ganacsi fara badan iyo dhaqaale iyo hanti fara badan oo Soomaali leedahay waxay taala Kenya
Kenya waxaa ka mid ah 3 gobol oo 47 county oo ka tirsan 3 ka mid ah waxaa dego dad qowmiyad Soomaali ku abtirsado muxuu ahaa isla dadkaas meesha ay degan yihiin iyo goboladaas ay degan yihiinna ayada naftirkeeda muran ka taagnaa oo lagu tirinayay inay Soomaaliya ay leedahay oo muxuu ahaa xilligeeda la gaari doona ayadana Cabdicasiis siyaasadda waxaa la yiraahdaa cadow joogtana ma laha saaxiib joogtana ma laha laakiin dan joogtay leedahay haddaad aragto marka Kenya oo xagxaganaysa Soomaaliya ama heshiisyo horay dawladda oo la gashay ka baxayso waxaa jirta dan Kenyan ah oo markaas ayada taagan rabitaanka Kenyatigana oo markaas dawladda Kenyana uu kala xoog batay xiriirka ama siyaasadda ama wada hadaladii ama heshiisyadii ay wada gaareen watahay hadda diyaaradaha wajeer ku soo hakanaya ee ka soo duulaya magaalada Muqdisho dawladda Kenya waxay sheegtay in sabab la xiriira amaanka qaranka Kenya ay sabab u tahay in halkaasi loo waaciyo si loo soo xaqiijiyo deetana ay Jomo Kenyatta uga soo degaan maxaa keenaya xilligan dawladda Kenya in ay gasho arrimahaasi oo tiraado diyaaradaha xagga loo weecanaya horena uga soo degi jireen maxaa soo koran lisle Ingiriiska waxay yiraahdaan there is more that meets the eye yani in waxaa jiro ka badan inta ay isha aragto Kenya way dhihi kartaa arrimaha diyaaradaha wajeer lagu hakinayo waxaan u aragnaa amni ahaan iyo security-gana aan ku ilaalinaynaa laakiin tan iyo waagi ay asaga Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne Farmaajo ay gaareen heshiiska ah diyaaradaha inay toos duulimaad uga sameeyaan Nairobi iyo Muqdisho oo aysan hakad ku gelin wajeer muddo sanad iyo bar ku dhawaad ah ka soo wareegtay wax carqalada ama wax dhib ah oo ka soo yeerayna ma leh oo aan ognahay malaha marka waa iska aftirasho weeye haddii Kenya ay ku guul daraysatay xiriirkii wanaagsanaa iyo saaxiibtinimadii dalka dariska aan lanahay ee Soomaaliya kala dhaxeeyay inay maintain gareeyaan ama ay gacanta ku hayaan wixii intaas ka sokeeyo waxaan dhihi karnaa waa iska marmarsiyo aan loo meeldayn watahay dhawaan sidoo kale dhowr maalmood ka hor waxaa garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta laga caliyay wasiir ku xigeen dawladda Soomaaliya ka tirsan iyo 2 mudane oo baarlamaanada ka tirsanaa kuwaasi oo shir looga hadlayay xalka gaarista dagaalada gacan ka hadalka xuduudaha ka dhaca la rabay in Nairobi uu ka dhaco midowga Yurub ay maal gelinayeen Soomaaliya ay ku matalaan arrimahaasi marka la eego Kenya iyo Soomaaliya talaabada Kenya ay qaatay maxay muujinaysaa lisleeyahay aragtida shacabka Kenyaanka ay arrintaasi ka qabaan maxay tahay shacabka Kenyaatiga ah horta waa shacab nabad jecel martidana jecel haddii la yiraahdo Soomaali wadan ay ku qaxday ama ay marti ku noqotay waxaa la dhihi karaa wadankii ugu soo dhaweynta badnaa waa wadanka Kenya markii dawladda dadaaladeeda laga soo tago waxay waxaas oo dhan ku suura galeen bisaylka shacabka iyo ilbaxnimada shacabka iyo nabad jacaylka iyo daris jacaylka shacabka Kenyaatiga aad uguma dhago duleelaan arrimaha Soomaaliya muxuu ahaa waxaa aad loogu mashaqeeyay noloshooda qutul daruuriga ah waxay ka fikiraan iskoolkii caruurta geysan lahayn school feeskii muxuu ahaa cuntadii noloshoodii bay la harjadayaan fursad fara badan uma helaan arrimaha Soomaaliya laakiin si guud ahaan shacabka Kenyaatiga ah marnaba dawladooda kuma taageerayaan gardarro noocan oo kale ah arrinta nimanka siyaasiyiinta Soomaalida oo Jomo Kenyatta lagu qabsaday waxaa la yiraahdaa iska dandaansi waaye arrintii waxay la xiriirtaa sida la qiyaasayo inta badan badda murankii badda u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Kenya oo la isleeyahay bisha November sanadkan maxkamadda ICJ qaraar bay ka soo saari doontaa ama go'aan bay ka gaari doontaa aadna loo saadaalinayo guusha inay dhinac la ogyahay u badan tahay inkastoo inaan fiicnay inaan ka hor dhacno
mudanayaashaas marka meesha lagu xanibay waa arrin aada u xun waaye oo runtii aada looga xumaado. dimuqraadiyadda iyo muxuu ahaa ilbaxnimada siyaasadeed ee xilligan jirtana kuma qurxana kumana haboono. haddana dee nin walba waxaa layidhi nin tuur leh suu u seexda asaa yaqaan. xilligan aniga waxaa aaminsanahay dowladda Soomaaliya inay u bisishahay inay ka qayb qaadato siyaasadda gobolka, inuu u diyaarsan yihiin una carbeysan yihiin tilaabooyinka ugu wanaagsanaa oo ay qaadi lahaayeenna ay ku tala jiraan. annaga haddaan nahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee Kenya, arrimahan oo kale markay yimaadaan aad baan dhexdhexaad uga noqonnaa, sababtoo ah waxaan noqonnaa qori labada dhinac ka gubanahay. intana deegaan baan ku leenahay oo Soomaali gobollaan ku leenahay, caasimadii baan degannahay oo xildhibaanka Kamukunji waa nin Soomaali ah, anigoo musharax ahaa Soomaali ah, Soomaali kale ka tartamaysay, hanti fara badan baa taalo. walaalaheena kale oo Soomaaliyana wixii dhib ah loo geysto waa oga sokeena shacabka Kenyaatiga oo kale oo waa oga damqasho badannahay. marka isku soo duuduub arrintii ka dhacday Jomo Kenyatta waa arrin aad u fool xun, laakiin aan filayo labada madax Uhuru Kenyatta iyo Farmaajo inay leeyihiin xikmad iyo ilbaxnimo ku filan arrintaas ku xallin doonaan. aragti wax lagu maareeyo. dhinaca kale markaad eegto dowladda Kenya dhowr jeer hore waxay Soomaaliya ka codsatay in kiiska maxkamadda yaalla laga soo qaado labada dal ay ka niqaashaan arrintan muranka badda la xiriira, taasi oo Soomaaliya horey uga goos adagtay in ay tallaabo noocaasi qaado. waxaad hore u sheegtay tallaabooyin Kenya ay qaadayso oo kale in sabab ay u tahay muranka badda. xaaladdu hadday sidan kusii socoto maxaa muuqanaya lis oran karaya labada dhinac waliba labada dal xiriirka ka dhaxeeya diblomaasiyadeed marka loo yimaado? labada wadan horta cid sharciga ka sareysa ma laha. international law wax la yiraahdaa jiro, macnaha qaanuunka caalamiga, sharciga caalamiga ah, cid ka tilaabsan kartana ma laha. haddii ay jirto cid ka tilaabsan karto kiiskan maxkamad lama geeyeen. sababta uu maxkamadda u yaalla waxaa weeye in labadoodaba ay waajib ku tahay in ay processkaas maraan, wixii ka soo baxana ay u hoggaansamaan, wixii go-aano maxkamaddaas ay riddo oo xukun ah inay u hoggaansamaan. wax buunbuunin ka badan ilaa maaha inay ku biyo shubanaysa arrintan. labada wadanba qareenno ku filan oo khibrad u leh howlaha badda iyo dacwadaha noocaas oo kale ah matalayo. aniga waxaan aad u soo jeedinayaa dowladdeeda Kenya inay kalsooni muujiso oo looyarada ay dirsatay ay ku kalsoonaato. waxaanan dee waddankan uusan xaq u lahaynna kuma taageerayno inay u xaydxaytaan. haddii Soomaaliya ay ku guulaysato waa dad walaalaheena oo daris aan la nahay, waxaan noqonaynaa waddanka ugu yani uga faa'iidaysiga badan wadamada kale Africa marka Kenya ahaan markii loo eego. marka dhinacaas inaan ka fiirinana way fiican tahay. hadday Kenya ku guulaysatana Soomaaliya sidoo kale fursadii hadday Soomaaliya guulaysato ay Kenya heli lahayd, Soomaaliyana way helaysaa. dadka marka waxaa laga yaabaa laablakac fara badan inuu jiro oo arinta buunbuunis fara badan iyo cadaawad baa bilaabanayso iyo wadamada way sii kala fogaanayaan iyo muxuu ahaa waxaa laga yaabaa in wadamada isku dhacaan ama in siyaasadii diblomaasiyadda arrimaha dibadda ay halowdo. diblomaasiyadda waxa loo dejiyey waxaa weeye wixii khaldanna inay saxdo. haddii loogu talagalay inay wax khaldan saxdo, meesha waxaa ka cad in loo diyaar garoobay inay wax khaldamaan. aad iyo aad waa tahay cabdicasiis, markaad fiiriso xaafadda isla shalay ciidamada ayaa tegay, waxaa baaritaano lagu sameeyey qaar ka mid a xawaaladaha Soomaalida. qaar ka mid a mas-uuliyiinta xawaaladaha aan la hadalna qaarkood waxa ay sheegeen in arrintan ay ka dambeysay amar ka soo baxay bangiga dhexe oo lagu eegayo hofnaanta shaqo ee xawaaladuhu ay leeyihiin aysan wax xiriir la lahayn siyaasadda labada dal ka dhaxaysa. inta badanna xawaaladaha ay gacanta ku hayaan Soomaali Kenyaan oo muwaadiniin Kenyaan inta badan ay leeyihiin, laakiin haddana taasi waxay dhalisay
walaacay muujiyeen shacabka ku nool xaafadda Islii waxay ku soo aaday xilli siyaasadda labada dal aan iminka hagaagsanayn dhinaca xiriirka la xiriirta shacab badan baa walaac shala qaaday maxaad shacabkaas u sheegi lahayd oo ku aadan in Kenya tallaabooyin ay qaadi karayso lamida kii dad fara badan hore xeryaha loogu celiyay oo qaxootiga Soomaalida ahaa qaarkoodna Soomaaliya loogu diray dadkaasi maxaad u sheegi lahayd siyaasada aniga waxaan qabaa Soomaalida dhexdeeda inay ku badan tahay fadhi ku dirirka fadhi ku dirir markaan ku leeyahay waxaa weeye wixii xaqiiqada ahoo jiro dadka looma sheego lagamana la iskamana waraysto waa sax nimanka xawaaladleyda ah hadalka ay sheegeen oo ah arrintan inaysan siyaasad lug ku lahayn oo muxuu ahaa ay tahay un hufnaanta shaqadooda in la ilaalinayo qodobkaas waa muhiim teeda kale waxyaalo kale waxaa jiri karo dowladda aaday u weyn tahay u baaxad weyn tahay go-aamo waxaa jiro aanan ka soo fulin oosan ka warhaynin madaxa xukuumadda madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyo aysanba war ka haynin oo niman laga yaabo saraakiil sarsare oo dowladda ka tirsan inay danahooda shaqsiga ka dhex arkeen taas naftirkeeda in la milicsado way fiican tahay oo markii askar la arko ama markii xoogaa operation Islii dhankeeda la soo aado khalkhal fara badan iyo cabsi fara badan iyo kala yaac inuusan dadka ku beermin in la feejignaadana meesha way ku jirtaa laakiin isku soo duuduub wax cabsi ah ama wax yacni muxuu ahaa ay qabaan shacabka inaysan jirin baan soo jeedinayaa waxyaalahan way dhacaan way imaanayaan wayna dhamaanayaan aad iyo aad xeryaha qaxootiga haddii lagugu celiyo dee qaxooti baa tahay wax weyn ma ah xeryaha qaxootiga tag hadday ku suura gasho haddana waad soo noqonaysaa haddii dowladda ay sharci soo saarto in waddankaada lagugu celiyo noloshii dhammaadkeeda ma aha haddaad waddankaada aad waddankaadana waad ku noolaan kartaa marka wixii meesha ay yaalaan in aad looga barariyo ama walaac fara badan la muujiyo aniga ma qabo arrimahan oo kale markay soo baxaan fadhi ku dirirka iska yaraan waa tahay inta badan tallaabooyinkii noocan markay labada dal soo kala dhex galaan waxaa aad indhaha loogu hayaa siyaasiyiinta xeelka haya ee Soomaalida waqooyi bari iyo meelaha kala duwan ee Kenya ka soo jeeda iyo siyaasiyiinta sidii noo kala madax bannaan oo kale maxaa door qaadan kartaan asalaada annaga horta xaafadda Kamukunji oo Soomaalida ganacsigeeda ugu faraha badan uu yaalo Soomaaliya ka timid ahaan noqoto Soomaali qurbaha ka timid ahaan noqoto ama Soomaalida gobolada Kenya ka tirsan gobolka waqooyi bari joogo ganacsigooda ha noqdo waa laf dhabarka ganacsiga Soomaaliyeed ee Kenya xildhibaan waxaan haysanaa Soomaali ah laakiin nasiib darro xildhibaanka siyaasad ahaan aad uguma tiirsana Soomaalida waxaan ognahay doorashada hadda u dambeysay codkii la riday wuxuu ahaa 120,000 Soomaalida codeynaysay 20,000 way ka yaraayeen 100,000 waxay ahaayeen dadaan Soomaali ahayn madow ama Oromo ama dad kale yaa u badnaa ninka marka xildhibaanka oo soo galaayo meesha wuxuu siyaasadiisa mar walba ay u badnaan doontaa inuu u doodo ama inuu arrimahooda ka hadlo ama inuu matalo dadkii u codeeyay codka farada badan si Soomaalida way u codeeyeen laakiin yacni cod uu ku tashan kara ma aha marka waxaan isdhihi karaa inta laga helaayo xildhibaan codka uu helaayo uu 100% yahay cod Soomaali oo ka soo gala Kamukunji in arrimahan oo kale markay yimaadaan xildhibaanka xaafadda iyo weliba xildhibaanada kale oo Kenyaad Soomaalida oo baarlamaanka ku jiro baarlamaanka Kenya ku jiro arrimahan oo kale inay ka gaabsadaan bay u badan tahay sababtoo ninkii meesha joogay oo dadkaas ayaga ay soo doorteen oo matalayay hadduusan ku dhiirin karin arrimahan oo kale inuu u babac dhigo ama uu xuquuqdii dadka ay lahaayeen uu u doodo nin kaloo gobol kale ka yimid kuma dhiiran karo xiriirka diblomaasiyadeed iyo wanaajinta labada dal u dhaxeeya Soomaalida ay kaalin ma ka qaadan karaan inkastoo guddiyo baarlamaanka uu leeyahay ay jiraan wadamada muxuu ahaa tusaale way ka qayb qaadan karaan khaasatan ganacsatada tusaale ahaan operationki Entebbe oo muxuu ahaa dowladda Israel ay ku madax furan jirtay
maxaabiistii diyaaradda ay falastiiniyiinta afduubeen oo Kampala lagu afduubi jiray xiriirka Israel ay la yeelatay Kenya waxaa fududeeyay ganacsatada Israel oo Kenya jooga qofka ganacsatadaada ah haddii dowladda ay isku xiran yihiin oo ganacsatada Kenya ka ganacsada Soomaalida ay xiriir la leeyihiin dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya waxyaalahan oo kale dhaqsay xal ku keeni karaan siyaasadda markii laga soo tago arrimaha bulshada factorka ugu weyn oo siyaasadda hago waa ganacsigaas yaa marna xiniyaha ku tuujiyo marna taash kuu saaro hadduu marka ninka ganacsadahaada ah uu yaqaano sida loo gorgortamo oo qof dhiiran uu noqdo shilinka uu bixinayo waddankaas uu ku maalgelinayana faa'iidadu waddankaas u keeni karo og yahay hadduu shilinkaas waddankaas kala baxana cawaaqibta uu waddankaas uu kala kulmayo go-aankaas uu ganacsadaha qaaday hadduu ninka ganacsadaha og yahay kalsoonina isku qabo arrimahan oo kale waxay u samayn karaan waxa la yidhahda mitigation ama waxay u samayn karaan way maxaa la yidhahdaa way baxnaanin karaan arrimahan oo kale way baxnaanin karaan waa su-aashaada waa sax marka ganacsatada iyo dadka communityga ku nool islii arrimahan oo kale qayb libax bay ka qaadan karaan laakiin siyaasiyiinta si gooniya loo eega waliba kuwa xelalka haya iyaga maadaama Soomaali ay yihiin Kenyana ay ka tirsan yihiin kaalin noocay qaadan karaan marka iyaga si gooniya loo soo dul istaago horta in si voluntary ay howl u sameeyaan waa meesheeda oo yani voluntary markaan ku leeyahay waxaa mutadawacnimo inay ayaga isku soo bixiyaan siyaasadna mutadawacnimo kama dhacdo siyaasadda waa give and take waa isi aan ku siiyo macnaha waxaa dhabarkayga xoq aan dhabarkaada xoqo marka macnaha haddii aad arrimaha Soomaalida aad xoog saarto codka ugu farada badanna uu yahay cod aan Soomaali ahayn kursiga wuu u walwalayaa ninka musharaxa ninka xildhibaanka ah kursigiisu ilaashanaya sababtoo ah dowladdaad afka ku taagtay hadhow ayadaad rabtaa inaad adeegyo oga qaado shacabkaaga dowladda Soomaaliyana ma siinayso xildhibaan Yuusuf taageero dhaqaale ama fududayn siyaasadeed waxa uu waxaas dhan ka sugayo Uhuru Kenyatta marka booskaada farta kuma fiiqi kartid waa inaa xoogaa marka tala laga reebad leedahay halka ugu dambeeyay markii aan u imaano labada dal dani ugu jirtay waliba labada shacab ee diriska ah muxuu noqon karayaa is leedahay iyadoo waliba xaaladda maanta laga tusaale qaadanayo halka wuxuu noqon karaa horta deganaan in la muujiyo labada dhinac marna walbana aan laga quusanin wada xaajoodka iyo gorgortanka inuusan marnaba istaagin wada hadalka inuusan marnaba istaagin waxaan waa iska political wave baa la yiraahdaa waa yani waa hir siyaasadeed oo iska gudbi doona labada shacabna waxaan u soo jeedinayaa inay muxuu ahaa arrimo siyaasadeed oo laga gudbi doono aysan isku walaad isugu qaadin labadan wadan waa laba wadan oo muxuu ahaa laba wadan oo waxa weeye daris ah oo walaalo ah oo xiriir aad asxaan iyo abaal fara badan uu ka dhaxeeyo wax macnaha hal maalin iyo hal goob go-aan looga gaari kara maaha ama hal kiis oo maxkamad yaal uu soo wada gunaanadi kara maaha fariintaan u diray marka dowladda Kenya waxaa weeye directa yaysan nasirin baahida mar bay jirtay haddii laga gudbay waa lagu noqon karaa fariinta aan u diraayo dowladda uu hogaaminayo mudane madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Khayre horta waxaan leeyahay hambalyo muxuu ahaa qaabka wanaagsan oo xiriirka siyaasadeed ee arrimaha dibadda aad ugu guuleysateen midaana waa un fursad kale oo aad ku muujisaan guulihii aad soo hoyinayseen haddaan marka kaftan yar aan kusoo gunaanado waxaa weeye Farmaajo waxaan leeyahay waxaa laga rabaa dhaqankii uu yeelan lahaa wiil ama walaalkii ka weyn ismahdiyey
dhaqankii walaal yar oo walaalkii ka weyn ismahdiye uu yeelan lahaa waa laga rabaa macnaha waa dulqaad walaalka ka weyn hadduu ismahdiyo waa inaad dejiso wey banooniga inaad afka ku taagto ama aad la xorgumto maaha waxaan kaloon leeyahay waa inaad yeelataa dhaqankii oday soomaaliyeed oo 13 bahweyn 13 caruura u hayso oo maseyrtay kadib xurguf ama muxuu ahaa xan la maqlay in odayga uu gabar yar oo 15 jir uu guriga keeni rabo macnaha xaas labaad uu guursan rabo meeshaas waxaan ka wadaa macnaha xaaska yar waxaa weeye Ethiopia xiriirka Soomaaliya ayada aad u soo noqonaya bahweynta Kenya oo xiriir fara badan iyo sanadaha u dambeeyay oo Soomaaliya ka dhaxeeyayna oo ilmo fara badan Soomaaliya u hayso qaxooti fara badan ganacsi fara badan oo Soomaaliya u hayso way masayrtay waxaan leeyahay marka yaanan waxaan rabaa odayga farmaajo inuu yeesho dhaqankii oday Soomaaliyeed oo bahweynta ku masayrtay 13 caruurna u hayso dulqaad fara badan ha muujiyaan aad baad mahadsantahay waxaa leedahay marka Kenya wax badan baa yaala Kenya wax badan baa yaala wax lagu degdegi karo ma aad iyo mahadsantahay Cabdixasiis Xasan oo daawadayaal nagala qayb qaadanaya barnaamijka Howraarsan waxa uu kamid yahay siyaasiyiinta Soomaalida Kenya hore waxa uu isugu soo taagay kursiga xildhibaannimo Kamakunja oo ay ka tirsan tahay xaafadda Islii magaalada Nairobi Cabdixasiis aad mahadsantahay Cabdixasiis waa tahay qodobada kale ee barnaamijka ayaynu guda gali doonaa goordhow haddii uu guul la saamaxo